وحقاف كودو دعي وحا أقل قلي قبتي جعي لبقرتاديو قوان صدنو للقرحون قوان صدنو للقرحون محمد عمر أوغادين وكما قاعدير في الدين يمرودي سكوسر إبراهيم باسقول ولابا لبانا إصدور تقول كودنا كدعي مقالة جوري عاصمة هيرشابيلي warbixinteena way ka duwan tahay warbixinada kale waxaa jira waxyaalo badan oo adiga hadda daawanaya warbixintan aad ka ogeen sida uu ahaa bilowga guurka qabanqaabada arooska doonista reerka ka dhalay gabadha aroosada ah iyo farxadda labada lamaano fartuun aadan xeefo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe waa shakhsiga isku xilqaantay inay dhisto qoyska lamaanaha ah sidoo kale ifka iska calmaday maxamed cumar ogaadeen mar wuxuu dareemayaa farxad marna murug wuxuu jeclaa farxadda arooskiisa inay ka qayb qaataan labadiisa waalid oo goor horeba geeriyoodeen labadan lamaano farxad ay dareemayaan ma aha mid halkan lagu soo koobi karo jacaylka ayaa dareen la isla sida qofba qofka kale dhankiisa ka daadiya farxadda ugu weyn labada lamaano ee jacayl ay helaan ayaa ah guur xalaal ah oo wada xalaal ah iyo nolol ay ku faraxsan yihiin wuxuu aqalgalkoodu ahaa mid xiise gaar leh u lahaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda arooska dukturada jannada mara si loogu mayde maamus la siiyay dukturada jannada mara si loogu mayde maamus la siiyay xafladan ayaa mid taariikh u ah ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan fartuun aadan xeefo oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa markii ugu horeysay dhisay qoys lamaana ah sidoo kalena u sameeyay aroos si heer sare loo diyaariyay waa lamaano isdoortay isla markaana xiriirkooda ku dhisnaa jacayl oo aan haysan wax dhaqaale ah guri la dhisiyo mid la dumiyo maxay kala duwan yihiin waa kan aynoo sharxo Sheekh Xasan oo ka mid ah culimada magaalada Jowhar dadka muslimiinta ayaga inay isu gacan qabtaan kii aan awoodin inuu guursado guuriyo gurigaasna dhiso wuxuu dhisay guri oo insha Allah ka imaan doono gabar Ilaahay caabudi doonto wiil Ilaahay caabudi doono qoyskana qoys muslim ee wadayhi marka hore la soo asaasay khayrkaasi wanaagaas ayaa ka imaan doono qof walaalkiisa muslimka u guuriyay isla markaasna adduunyada uu guuriyay Allah subhanahu wa ta'ala arshigiisa harkiisa arso doona fartuun aadan xeefo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka sheekeynaysa sida ku bilowday qabanqaabada guurka iyo garab istaagay u muujisay lamaanahan ifka iska calmaday waxaan ku jirnay muddo 2 bilood ee qabanqaabinta arooska walaalkeen Fiidin ayadoo ay ka shaqeeyeen dhalinyaro isxilqaantay annaga iyo dhalinyaro ah dhalinyaradaas oo ah dhalinyaro aad ugu shaqeysay arooska walaalkeen Fiidin qorshaheena ma ahayn wiilkaas wuxuu ahaa wiil aanan haysanin wax waalid ah hooyana aan lahayn aabana aan lahayn hooyadiisa aabihiisna asagoo yar ay dhinteen waxa soo korsatay ayeeyadiis oo aanan ayeeyadiisa soo korsatay ayeeyadiisna way dhimatay alxamdulillah maanta ma jirin wax ilma adeer ah ama abti ah ama ma jirin oo arooskaas kaligiisa meel degan wiilkaas waxa aragtay dhalinyaro oo arintaas ka shaqeyso ugu horeeyo Axmed Cali Muuse iyo Atarax iyo Kube waxay ahaayeen dadkii arintaas ka shaqeeyay inta badan kaalinta weyn ka qaatay wiilkaas markaan aragnay inuu yahay wiil dhalinyaro ah una baahan guurkaas si guur wadareed oo ahay maadaama dhalinyaro caasimada ay isku xilqaameen ayadoo la ogyahay aroos markii la galaayo ama aroos hawshiisa qarashkiisa oo na yareen waxa ka qaatay qaar badan oo dhalinyaro ah qayb weyn guurkaas waxa la dhiibay arooskii waa la soo guuriyay gurigii loo dhigay xaflad aroos aad u qurux badan alxamdulillah 20 bisha oo shalay aydan guri keenay waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle kaalinta weyn ee muuqata ee ka qaateen guurka walaalkeen Fiidin waxaan u rajeynayaa wiilkaas inuu noqdo guur farxad leh maadaama uu ahaa guur wadareed ay ka shaqeeyeen dhalinyarada caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu horeeyo Axmed Cali Muuse iyo Atarax iyo tiim kale aad u fara badan oo aan ku soo koobi karna halkan ina magacooda ku xuso waxaan u rajeynayaa guurkaas guur farxad leh waan u hambaleynayaa hambalyan leeyahay hambalyo
waxaa jira dad badan aanan awoodin sidaas oo kale laakiin annaga way naga go'an tahay inta karaamkeena ah inaan ka qaadano arrimaha noocaas oo kale Yusni Maxamed Axmed Hirshabelle TV Jowhar.